شحديها مقدشاي كاخاتيا هدي مالبيو سنود dadkaagu malaynaya تعدي تولد إسبورتيغا والشيكو قيرة بدن أو قيالي علماء نفسية سايكولوجيا waxay rumaysan yihiin riyada qaar inay tahay wixii ku badnaa maskaxdaada oo aad dib u soo celiso xaqiiqaduna tahay ismoodsiin iyo buuqi oo dib kuugu soo noqda sida daraadeed warbixintani waxay tahay sida riyo oo kale maadaama ay maankayagu ka buuxsan tahay garoonka caanka ah Stadium Muqdisho kadib markii ay safar ku yimaadeen wafuud uu hogaaminayo madaxa xiriirka kubadda cagta qaaradda Afrika Masar Axmed oo ah gudoomiyaha xiriirkaasi booqashadoodii gegada Stadium Muqdisho daqiiqadaha xayiraad lagu sameeyay irida horena kadib ay u gudbeen annaguna aan ku soo dhaxarag sheekadan warbixintan waxay noqon doontaa mid sida riyada oo kale la isku wareysto ama ruux dheelmasho galay oo isagoo sariirtiisa jiifa soo bartay wax badan oo uusan horay u baran dhowr iyo 20 sano uu jiray riyada iyo sheekadan oo idil waxa ay dhacday hal habeen intooda badanna waxa ay tahay su'aalo iyo jawaabo xog wareysi u badan waxaana ay dhex martay Cabdifataax Naani oo ka tirsan Gool FM iyo garoonka tuulada ciyaaraha Stadium Muqdisho oo ay matalayso wariyaha iyaga Nimco Cabdullaahi Magan waxa ay ahayd habeen boqoran oo aad u bilicsan waxa uu gurigiisa u soo caraabay xilli hore oo fiidnimo ah wuxuu iska bixiyay waajibaadkii afarta ah ee cishaha kadib waxa uu u gudagalay inuu isku diyaariyo hurdo isagoo sii xaarxaaranaya sariirtiisii taasna uu ku guuleystay hagaajinteedii balse habeenkaasi waxa uu raacday inuu suuliga taga soo qubaystay isa soo barfuumiyay sida qof balan leh ama gabar la haasaawaya oo kale isku diyaariyay ma oga halkuu u socdo hase yeeshee barfuunka habeenkaasi si baaba loo amray inuu marsado wuuna sameeyay asagoo yimid sariirtiisii iskuna kala bixiyay kadib ismashquulis isboosjan uu galay wuxuu daartay mobilkiisa screen touch ka ahaa dabadeedna wuxuu shitay hees wadani oo u baahnaa ugu dambeyntiina marshada ayay u gashay hurdada wadadii dheereed buuna cagta saaray calaashan hurdada macaanid kadib wuxuu in cabaara markuu gamacsanaa uu gaaray meel aad u burbursaneed oo aad u malayso inuu ka dhacay xasuuqii dalka Rwanda ama xitaa uu soo gaaray qayb ka mid ah faninkii ama firarkii atomic bombkii lagu garaacay Hiroshima iyo Nagasaki Japan gunaanadkii dagaalkii labaad ee adduunka meesha waa meel uu bar garanayo riyoodaha balse uusan si wacan u hayn xaruntaasi uu booqday waxa ka muuqday burbur iyo busaarad dhan waliba ah cod sii dhimanaya ayayna ku tiri soo dhawow wiilkaygiiyo wuu yaabay ma dhisma hadlaya sidee baa wax loo wadaa iyo su'aalo aan meesha oolin ayuu ka bixi waayay balse ugu dambeyntii way isfahmeen waxaana u bilowday wada sheekaysiga cajiibka ah ee riyada dhexdeeda uu ku arkay waxayna u dhacday sheekada sida tan maxaa dhinacyada la eegaysaa ma wax baa iga kaalumay mise qaayahayga la yaaban tahay qaaya iya maya waxaan la yaabanahay intaanan intee ku nooleed dalka uu soo hagaagay ma anaa warwareegi kara sida bini'aadamkii oo kale meesheedii baan iska aalaa dhib yarna wuu jiraa laakiin alxamdulillah daqar mooyee wax kale waan ka badqabaa gartay laakiin waan ka xumahay waxaan u wada hadlaynaa sida laba qof oo hore isku garanayay mana ku weydiin magacaada iyo hawshaad qabatid iga raali noqo fudeedka waa u dhashay oo ma taasaa dhib leh magacaygu waa Stadium Muqdisho dhalintaan barbaariya kubad baan ku habaa hormar baan u wiciyaa guri nabad baan ahay oo aabbaha iyo awooha baa ii soo daawasho tagay ama iguba ciyaaray ee hadda ma ii garatay Stadium Muqdisho ها متولدي عيارها وان أقانا عكي عيل بدنا آوي عقاركي آد عانكا كوهيد مس حولا عني حولا كورونا حبض با عنتي عاوسكيجي متانتي كونيساي حد ميسو بري كرتا قيبا كاليان كأهين أفكان هوري ومحان كديدا إنك حي هانك باقنتاس ولكن داد كان مذوقا أو وتطوطياشا محي أهايين مسيكو قدو العياريين هاو يقو عياريان لكن ما هان عيارتي النبضة وآد تقاني ee waa minimar iyo guri miino oo aan noqday ee ha ku mashquulina ina kaxee alla weynaan badana oo meeshan dhiiga iyo tuutaha qoyan ay ku jiraan maxay ahayd oo ma meeshan waa barakadii lagu dabaalan jiray iyo xaruntii ciyaartii dabaasha ee qaranku lahaa tuutaha iyo dhiiguna marxaladda aan ku jira ayuu matalayaa marka wax badan ha ku walwaalin haddii aadan rabin in lagu xiro wow oo Anvil Stanford Bridge waaba ka weyn tahay anaa kuu qiray taas انوان داليه wili wax ma noo dhiman oo ma adaa gaaray xitaa hafiga mid ah ee meeshan waxay ahayd goobihii lagu ordi jiray halka geeska ahna waa jimicsiga iyo meelihii lagu nasan jiray laakiin taalooyinkan u eg kubi isgaarsiinta maxay ahaayeen ciidankaygu dhex nool ee idaashaday baa iska leh internet bay ku isticmaalayaan malaha
maya ma aan kuwaan yaryar ee dhulka u dhow waxaan ula jeedaa kuwaas aad ku dhaadheer iga raali noqo waxay ahaayeen kuwii nalalkii iyo farayaasheedii lagu xiri jiray waan ku qalday kuwaan dhulka yaalay yaan u maleeyey ani intaan ka badan ma kula socon karo ee kaabiskan yar isku gaabi adaa iga duqsane waxaan ku weydiinayaa dadkii kugu soo ciyaaray yaa u sharaf badnaa ama aad ugu jecleedba dad waa isoo maray laakiin qof maalin walba bunduq iyo baaruud laga kor ridayo muxuu xasuusan karaa waa maya waxaan ka xasuustaa keliya Shangole Shaarkey Sheekh iyo Shariif Saalax inta kale waan hilmaamay igu salaan dhammaantood Allah u naxariisto dhammaantoodu way dhinteen iyagoo ku jecel ayay adduunyada ka tageen balse waxaan ku rajeynayaa waqti kale oo qurux badan iyo soo kabsasho wanaagsan intaadan iga tagin magaalada wariga sii ciyaaraha sidee yihiin koonisna waa la isku tagay baan maqlaye mid kale oo aan garanaynin waa la furay dabaday waa jaamacadaha gadaashaada ayaa la sameeyey laakiin labadooda isku darkooda xitaa kuma gaaraan eeyaan kugu salaamaa maxaa safarin ah oo aad ii dhiibaysaa maxaan kuu dhiibaahe haddiiba ay dhinteen dadkii dad ahaay ma aqaan waxaan kuu dhiibo laakiin waxaad u sheegtaa dhalinyarada hadda jooga in ay mar waliba kubadda ciyaaraan aysan ka niyad jabin muqdisho xiran iyo wax la midka ah intii aad heli kartaan 2 mitir ba Allah ka dhigay ku ciyaara oo wada guusha ciyaarta anna waan iman doonaa iyadoo muqdisho ay sidaan ka gedisan tahay waana ku daahiyay sorry ma hayo waxaan kugu sii macsalaameeyo laakiin mareertaas xagga ka baxayso dhowr mire ka qaado si ay kugu noqoto sahay mareer oo adiga miyay ka dhaxbaxdaa waa yaab okay macsalamo weliga waan ku xiisi doonaa tuuladii ciyaaraha sidoo kale amba waan ku sugayay xiriirkan u sheeg inaysan isku murjin maqnaashahayga ee ay hawshooda inta cisbitaalka aan ka soo baxay kulan dambe oo xiiso leh bye bye I love you Sports House bye bye I love you too my son welcome back if Allah say waqtigii hurdada ka toosi lahaa baa la gaaray sidaas buuna ku soo gabagaboomay safarkiisii saacadaha habeenimada ah qaatay ee uu ku soo bartay garoonka Stadium Muqdisho oo uusan weligiis tagin shakhsi ahaan haddana tani waa sheeko mala awaal iyo hal hindiseed maskaxeed oo lagu shabaheeyay waaqaca uu hadda ku sugan yahay garoonka Stadium Muqdisho ama tuuladii isboortiga dalkeena Soomaaliya haddaad mari laga baqiyo amnigu mudaka xumaa hadday mudfaayo rasaas maryo dhigla ku xiran inay mugdiga baxshaan muqdisho صايفتين مير دغالدي ربنا مغتيسا كما هير دغالدي ربنا مغتيسا waa qormadii xiisaha badneed ee uu qalinka u qaatay Cabduhaab Axmed anigoona sarkiin xaashi Nuura iyo labada qof ee sheekada ay dhex wadaagtay Cabdi Fataxnaan iyo Nimco iyo dhammaan bahda Gool FM waxaan u rajaynaynaa horumar wacan tuuladii isboortiga iyo guud ahaan geyigeena Soomaaliya